magaalada waxaa la yiraahdaa aan joogno Damashad waxay ka tirsantahay gobolka Heesan waxay 20 daqiiqo u jirtaa magaalada caanka ah ee Frankfurt runtii Damashad waxaan joognaa ikhtiyaari ama 8 sano waa magaalo aan aad u jecelahay dadka Soomaaliyeed ay jecel yihiin magaalo lagu badan yahay hadda waxaan fadhinaa maqaayada sahan waqtiguna waa 12 oo wax yar dhiman ama 5 saacadoodnimo qof soo yaqaan marka Damashad waa magaalo qurux badan joogeedu fiican yahay ma sha Allah xaqiiqatan waa wadan qurux badan waa wadan runtii ku soo jiidanaya aad u qurux badan Soomaaliduna way shaqeystaan waa dad shaqeysto waa magaalo marka subaxii soo kacdid yaani marka aad fasaxto kala dareemaysid Soomaalida inay dad shaqeystay yihiin waayo marka aad shaqeynaysid ma dareemi kartid dadka laakiin marka adiga maalmaha farayga aad tahay oo kale Damashad Louise Blas marka tagtid wax Soomaali oo jooma arkaysid marka waxa taas ku cadeynaysa in dadku Soomaalida ay shaqeystaan magaalada kaas oo naga dad badan tahay oo naga Soomaali badan tahay laakiin Damashad waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu dadka badan marka loo eego Soomaalida waxa naga badan Munich oo kale kaas oo naga Soomaali badan tahay waxa kale oo naga Soomaali badan magaalada la yiraahdo Bonn marka Damashad waxa waaye afraad ama shanaad waa noqonayna masjid waa ku yaala oo Soomaalidu ay maamulkeeda hayso inkastoo kira yahay laakiin waxa rajaynaynaa sanadaha soo socdo inuu kirada ka baxo masjidkaas waxa la yiraahdaa Imaam Shaafici maalmaha sabdiga iyo axadda quraanka ayaa lagu baraa ardayda Soomaalida ah yar yar runtii waa loo baahan yahay in ardayda lagu xifdiyo diintooda lagu xifdiyo afkooda oo afkana ay bartaan kaliya hadii wadankan ay joogan jamal bartaan wuxuu noqonaa hadii afkii inuu nooc kala noqdo marka ma sha Allah ilaahay yaa noo barakay caruurteena waxa laga shaqeystaa wax loo yaqaan laagar oo aad loogu badan yahay oo dadka ay fahmi karaan waa shaqo iska xamaal ah in qofku uu xamaashana ceeb ma ahan waa runtii waxa la yiri murqa hadaa shiishid waxa kaaga soo baxa waxay tahay wax aad adiga xaq u leedahay waaye marka muhiim waaye in dadku ay shaqeystaan sababtoo tahay qof stress ma qabanayo haduu shaqeysto qofka haduu ilaahiga ku xirnaado diinta oo si fiican u dhaqmana wax stress leeyahay ma jirayaan marka magaalooyinka kale waa ka fiicanahay umaleena marka Damashad loo eego gaar ahaan gobolka Heesan oo dhamaantiis waxa sababa wadanka Jarmalka waxa loo yaqaanaa Mareykanka labaad sababtoo tahay qaaradda Yurub marka laga soo tago Ingiriiska waa wadanka ugu shaqada badan waaye saddex shiftiya la shaqeeyaa dadka subaxdii hore niska marka la gaaro 6 ilaa 14 ama 2 duhurnimo shiftiya la galaa 2 duhurnimo ilaa 10kana shifti kala la galaa oo loo yaqaano shifti habeenkiina waa naqshifti oo la galo 10 ilaa 6 subaxnimo marka waxa keenayo waa wadan yaani u furan shaqada oo shirkaduhu ay dadka soo dalbanayaan dadka qaxootiga ay halkan ku oo anaga kamid nahnay fursado waaweyn ay haystaan oo qofka inuu shaqeysto noloshiisa uu kaabo oo waxa aad u fiican laakiin waxaan ugu baaqayaa oo aan fursadan ugu faa'iideysanahay halkan dadka Soomaalida ee halka ku dhaqan inay shaqooyinkooda si laabaan ama ay wax bartaan labadaas ay daaficayso adduunku waa cilmi iyo amal marka qofka markuu wax bartana wuxuu helayaa micnihii faa'iido badan oo helaya waxa kor u qaadmay aqoontiisa kor u qaadmayso luqadda wadanka inaad baratid waa wax muhiim ah sababtoo tahay wadanka aad joogtid luqadiisa ayaa hadaad baratid wax badan oo faa'iido ah ayaa ka dhaxaylaysa xirfadaad diyaari kartaa waxaad macnaha horumar ka sameyn kartaa hadaa u baahan tahay caafimaad wadanka wadamada wadan caafimaad waaye marka muhiim waaye arintaas Soomaalida wallahi dhalinyarada ku badan waruta waxa keenayo dhalinyarada sida wadamada kale oo Carabta oo kale Suuriya ama Afghanistan markay soo taariibayaan waxay la soo taariibaan waalidkoodii soo wataan laakiin anaga sidaas ma nihin dhalinyaradu ba soo taariibto oo dhaxad iyo yar isku jirto marka waalidkana gadaal daba qofku markuu dacwad u furo ayuu keenaa marka laakiin dhalinyarada saasa ku badisay magaaladan ama gobolkan aan yiraahdo ama Jarmalka oo dhan wallahi guurka waxa u moodaa sidii loo baahan oo san ahayn laakiin kulli dhalinyaradu way guursadaan haba u badnaadaan inay dalka ka soo guursadaan halkan dadka guursada way jiraan waxa buu calaf gabdheena Soomaaliyeed waa gabdho sharaf badan oo runtii halkan aan ka amaanayo xaqiiqatan iyaga naftigoodu markay hooyo noqdaan ragga waxay ku eedeeyaan inay ku dayacaan caruurta arintaasna waa runtii wax aan fiicnayn waxa loo baahan yahay in qofka aad guursanaysid aadan ku dayacin nolosha ku adkeenin aadan dhibaateenin
يعني عروته كودا ليسو كل قد ما يصدق أذيك بولا دشي أبو في عن نقو قبل وناجي وحول بالعب وحبة رئيسيس كسي ذهب يو دينار كيد دون تبع دشة لصورة سومين واحد كسي دبعت العقوة هيلسا قبل هذه العق ربطه وحبة دبعتها وأركن ما هذا كوه هسا محكو هذا سيد أذيك لوجوسو بربري لوجوسو ونجوا هذا كوسو برباريس يلا برتسي تاجنته marka garo waxa keenayo dhalinyaradeena Soomaaliyeed yani qofka shaqo markuu isku taxalujiyo waalidna uu ka dambeeyo wuxuu mar walba ka fakiraa waalidkii dhibkii uu ka soo tagay taasa marka waxay sababaysaa in qofku uu ku mashquulo waalidkiisa oo yani uu dhaqaale halkan ugu diro marka guur kan waa muhiim in loo soo jeesto marka waxaan dhihi lahaa تاسع سبب السمركة لكن تواس كجرا رج يعني واسكو في النادي صوت جورك واسكو في الناش مركز اسكو في الناتد أي جور سمين كرتا لكن تاسع اسكو في اللين فورين كابدنايو مركز تاسع مركز قفل بوحواي ولا كل شيء عادي مر الله المسؤولين تمساجد كمامولة وحي إيش جين إني كنت عميان أو يجعلهين إني مستقبل كمساجد صومالي ذو أي لا ذا هو أنكرهن إني يفسدان ماينس ولو جوليستي كاسل هذا مرفع عن مريسا سومالي كاسكو دخن بقول كي بسديتن ولا أروري العكتي لو تلقى مساك لو يفسده منج أو كله علماء هالكاس جوكتوش عبد الرحمن جنقو كم دي هاي يجنا وحي وضعن أبابل إن مساجد كلا أنهن يفسدان مركز جرمرك إن مساجد لقي يفسده ما سهلنا لكن ما شاء الله هدو حول مدة إن دتك صدقة جعلين إن لبحان مر walbana wax masaajid ku saabsan iyo wax qeyr ku saabsan dadku ay u tartamaanba oo aad loo jecel yahay marka damashtaadna kulli waxaan u maleynaa lacag meel u taalo way jirtaa laakiin lacagahaas waa in lacag lagu sii daraa oo la dhameystiraa marka rajada ma xumo 100%